waxaan u sheegayaa oo weliba aad u maqlaysaa boqolka cisho ugu horeeya bilaabaya waddada beligubadle magaalo ku suntan halgankii dib u xoraynta ee Somaliland halkani waa waddada isku xidha beligubadle ilaa iyo magaalada caasimadda ah ee Hargeysa waa waddo masaafadeedu ay dhan tahay 65 kiiloomitir oo kaliya balse shacabka beligubadle ay si maalinle ah dhibaatooyin kala duwan ugala kulmaan waa wadda rafa taasoo xilli roobaadkana magaaladan beligubadle ka dhigta magaalo ka go'an Somaliland oo waxa go'a isku socodka dadka iyo gaadiidka sanadkii 2017 ololaha doorashada waxa ku galay hirgelinta dhismaha waddadan madaxweyne Muuse Biixi isagoo ku qoray buug siyaasadeedka xisbiga kulmiye sidoo kalena fagaarayaasha uga ballan qaaday reer beligubadle dhismaha waddadan balse ballanqaadkaasi ayaa noqday 7 sannadood kadib dhadar roob noqon weyday waxaana shacabku ay weli wajahayaan dhibaatada waddadan ay kala kulmaan xalayto anoo 13 hooyooyina sida ayuu gaarigu halkaa iga jabay kirkiiskii baa jabay ma garanaysaa wadda xumo aawadeed 7 sano ay haysata xukuumaddaasi waxbana ma 60 kiiloomitir bay dhisi weyday waa 60 kiiloomitir markasta laba dhibaato nagala kulanta hadday gaadhin taayir nagaga banjara hadday gudgudkeeda soo gaadhiga ku dhaco ama ciiridba keena ama dadkii saarnaa daaqa soo gaadho de mar baan ku xidhanaba meelan aanan kaba tigi maalinta ku dhaxna saasoo kale imkaan u fadhina ama gaadhi kale noo yimaado ama aan kaba lugaynaba marka dhibaato aad u far badan baan waddada ku qabnaa musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoo maanka ku haya muhiimadda magaaladani ay u leedahay Somaliland waxa uu ballan qaadayaa in dhismaha waddadan ay xukuumaddiisu hirgelin doonto haddii la doorto 100 maalmood ee ugu horreeya muddo xileedkiisa kaasi oo ay ku dhiiran weyday muddo 7 sano ah xukuumadda madaxweyne Biixi waa shacbiga deegaanka beligubadle u sheegaya waddadan inay noqon doonto waddooyinka ugu horreeya ee mudnaanta aan siinayno insha Allah fulina doono dhammaystirna doono gobolka ama magaalada beligubadle oo ku suntan halgankii Somaliland waxaan u diraynaa halgankii waxa soo gashay in dalku hagaago oo wanaagsanaado marka maanta xukuumadda maanta jirta way fashilantay dalkuna isbedel buu baahan yahay waxaan soo jeedinayaa shacbiga beligubadle ama gobolka Hawdba maadaama halgan ku suftan yihiin inay isbedelkana ku suntanaadaan hogaamiyaan ninkii 3 bilood baan waddada ku bilaabaya wuxuun baa la tartami karin yiraahdaa anna bilya bar baan ku bilaabaya madaxduna sideedaba waxaan idhi musharaxayga markaa codkiisa dhageystay geesisana waayo musharaxiintu inta badan waxay yidhaahdaan waxaasaan qabanayaa muddada ma qabtaan laakiin musharaxaynu sidnaa wuxuu yidhi waddadaa gobolka Hawd tegaysa caasimadiisa beligubadle 3 boqolka cisho ugu horreeya ayaan ku bilaabaya maanta ninka waddadaasi noloshiisii tahay ee horumarkiisii tahay ee 9 cisho loo ballan qaaday ee codkiisa meel kala maraya kaasi wuxuu doonayaa inuu garmaayo dooro nambarka 1 warqadda codaynta doorashada madaxweynaha ku dooro musharax madaxweyne cabdiraxmaan ciro isbedel iyo iskaashi qaran